isticmaalka baraha bulshada ayaa ku sii faafay gudaha dalka iyadoo taasi loo aaneynayo taleefannada gacanta ah oo ay Kenyaanku adeegsadaan. warbixin ay soo saartay hay'adda Ipsos Kenya ayaa lagu sheegay in ilaa hadda isticmaalka taleefannada gacanta ay 95% galaan qoysaska Kenyaanka ah. warbixintani oo lagu magac daray Kenya Media Establishment Survey 2020 ayaa sidoo kale lagu sheegay in 27.3 milyan oo Kenyaan ah ay dhageystaan isla markaana ay si toos ah ugu xiran yihiin raadiyaasha, halka 25.5 milyan oo Kenyaan ah ay daawadaan telefishinada. 16 milyan oo qof ayaa si toos ah u isticmaalaan internetka sida warbixinta lagu sheegay, halka dhaqanka wax akhriska uu hoos u dhacay isla markaana uu taagan yahay 8%. agaasimaha hay'adda Ipsos Chiris Kithaiga ayaa sheegay in hay'addaasi Ipsos ay si dhow ula shaqaynayso daneeyayaasha si wax looga bedelo deegaanka warbaahinta. hay'adda Ipsos Kenya ayaa dhanka kala sheegtay in Kenyaan badan ay isticmaalaan bangiyada mobilada, Shamis, Saccos iyo hay'adda maaliyadda yar isla markaana ay joojiyeen adeegsiga bangiyada. sanadadii u dambeysay ayaa waxaa baraha bulshada ku soo badanaya dadka Kenyaanka ah ee sida weyn u isticmaala mobilada, iyaga oo markaasi shaqo kasta ay qabanayaan u adeegsada mobilka ama taleefannada gacanta. tani ay saameyn weyn ku yeelatay ardayda yaryar ee wax ka baran jiray gudaha dalka, iyaga oo markaasi akhriskoodii hoos u dhacay 8% sida warbaahinta lagu sheegay. sidoo kale taleefannada gacanta ayaa noqday kuwa tallaabo kastoo la qaadayo loo adeegsado isla markaana lagaga maarmo waxyaabihii kale loo adeegsan jiray kumbiyuutarada ama haddii maskax noqotaba. Axmed Garaad, Ibro Radio, Nairobi.